tartankan ayaa lagu soo beegay maalin ka hor 6 Abriil oo ku astaysan maalinta horumarka isboortiga nabadda adduunka iyo maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed waxaana tartamayaashu ay orodka ka soo bilaabeen isgoyska kiiloomitir 4 ilaa taalada daljirka Dahsoon tartanka ayaa intii uu soconayay waxa si weyn loo adkeeyay ammaanka wadada dheer ee Makka al-Mukarrama oo ah halka uu tartanku ka dhacayay waxaana kaalinta koowaad ee dhinaca wiilasha ku guuleystay Cabdinuur Maxamed Garaad oo ka socday degmada Kaaraan Cabdinuur ayaa markii uu tartanka soo gabagaboobay VOA uga waramay sida uu arko guusha uu gaaray magacaygu waa Cabdinuur Maxamed Garaad Cabdinuur degmada ordaysa degmada Kaaraan orday way sidee u aragtaa maanta ina guushan soo yeeshay ma sha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu guulsan oo kale taan degmada soo hooyo هذا كفر حسنا مان أرد شو جورينيا ها أرد شو جوري أو معناه نوعنا كلا الوقت ودوينك هذه هذا كفر حسنا ما شاء الله بقول كي وبقول هذا كفر أرد حاجة كسب بالعود أرد كنا برافر أي لا يو در شركة دهسون وسيدا أي مركز جول وين وتاريخي هجرتي يس محافلة سامر ما شاء الله هير كان يركز في عن جود مدة ومد لوكلا مد أو بنانك أو ضمخ كلته inaan guul ka soo hooyaan rajayna sidoo kale Ikraan Maxamed Xuseen oo ka socotay degmada Shibis ayaa kaalinta koowaad ee dhinaca gabdhaha ku guuleysatay magacayga Ikraan Maxamed Xuseen waa Ikraan degmada ordaysay Shibis orodka xagee ka soo bilowday xagee ku dhameeyay barafra ka soo bilaabay daljirkan ku imaaday daljirka ku imaaday ay ina kaalinta koowaad ku guuleysatay sidee warqada waa ku faraxsanahay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in tartankani si weyn looga soo shaqeeyay jawi wanaagsanna uu ku dhacay waxa maanta aad u jeedaan in tartankii orodka ee magaalada Muqdisho uu si qurxan u dhacay isla markaana sanadkan wasaaradda iyo xiriirkaba ay runtii aad uga shaqeeyeen sidii sanadkan u noqon lahaa mid ka duwan tii sanadkii hore waxaa farxad noo wada ah in maanta dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal gabdho iyo dadka baahiyaha gaarka qaba inay si qurux badan uga wada qayb qaateen tartanka mini marathonka Muqdisho wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ugu dambeyntii ka warbixisay qaabka tartankani uu u dhacay iyo xiriirada isboorti ee ka qayb qaatay waxaan taaganahay bartanka magaalada Muqdisho waxaan hadeer soo gabagaboobaya tartankii orodka gaabnaa ee Muqdisho mini marathon oo aan loo kala harin 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo Olombikada iyo xiriirada hoos yimaada ugu horeeyo xiriirka ciyaaraha fudud gudoomiye Khadiija nala joogta waan ka wada qayb qaadanay sanadkii hore iyo sanadkan 6 Abriil waxa lagu xusaa maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka waa sanadkii labaad ee magaalada Muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban ee mini marathonka waxaana tartankan kii ka horeeyay uu dhacay 6 Abriil ee sanadkii 2018